Asalaamu calaykum daawadayaal waa duulimaad aad uga barateen halkan kasoo gudbiyay dhacdooyinkii dunida ugu waaweynaa wararkeena iyo warbixinadeena waxaan ku soo qaadanaynaa maantay oo taariikhdu tahay 23-kii bisha afraad 2020 waxaa warbaahinta dunidu ay isla dhexmaraysaa in hogaamiyihii waqooyiga Kooriya Kim Jong Un uu xaalad caafimaad oo halis ku sugan yahay halka ay warbaahinada kale duniduna ay si afkaar kala duwan oo ay ku cabireen ka maqnaanshihiisii uu ka maqnaa xafladii weyneed bishii April aynu ku jirna 14keedii loogu dhigi lahaa awoogiis oo ahaa Kimkii koowaad ahaana asaasay Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa la sheegayaa in Kim Jong Un uu qalliin lagu sameeyay kaasoo loo badinaya in aan xaaladiisu caafimaad fiicnayn iyadoo ay warbaahinadu qaar si kala duwan uga hadleen kuwa waxaa leeyihiin kuwaaba uu geeriyooday hase ahaatee haddayba taasi dhacday inuu geeriyooday waxaa loo badinayaa in waqooyiga Kooriya uu hogaamiye ka dhigto gabadha isaga ka yar ee la dhalatay ee la yiraahdo Kim Jong Un taasoo ahayd gacantiisa midig kana muuqatay sanadahan dambe fadhiyada iyo kulamada uu qabanayo iyadoo mararka qaarkood soo dhaweynaysay madax kala duwan oo wafuud oo dalkaasi Kuuriyada Waqooyi imanayay iyadoo sharciga Kuuriyada Waqooyi u yaal ayaa waxaa dad badani oo siyaasiyiin cabireen in aanay naag qaban karin dalkan oo ah dal xasaasi ama dal dhib u joog ah oo aad isu hayaan wadamada reer galbeedka ayaa waxaa la yiri ma suurtoobaysa inay marnaba qabato qof dumar waxaase loo badinayaa in xilkaasi uu la wareego haddayba dhacday in Kim Jong Un uu meesha ka baxo walaalkii oo la yiraahdo Kim Jong Un waxaan kaloo daawadayaal wararkeena warbixinadeena maanta kusoo qaadanaynaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu qabtay kulan uu kaga qaybgalayo online-ka kaasoo lagaga hadlayo sidii looga hortagi lahaa cudurkan COVID-19 ee ku sii fiday Ruushka maruu la hadlayay khubaro isugu jira kuwa saynisyahana iyo kuwa biologistayaal ayuu waxa yiri waa inaanu arrintan si degdeg uga soo saarnaa dawooyin aanu kaga hortagayno cudurkan si aanu ugu sii fidin waxaanu kaloo idiin haynaa daawadayaal madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu horaantii bishii Maarso uu la hadlay madaxweynaha koonfurta Kooriya isaga oo ka codsaday in ay wada shaqeyn kala yeeshaan qaabkii loo heli lahaa dawo ama tallaal cudurkan iyagoo Kuuriyada Koonfureed ay joogaan khubaro lagu qiyaasay 130 kuwaas kala duwan oo isugu jira biologistayaal iyo saynisyahano waxaan kaloo idiin haynaa daawadayaal wararkeena kusoo qaadanaynaa jaamacad ku taala dalka Mareykanka ayaa waxa ay daahfurtay amaba ay tiri waa lagu qanci karaa dawadii BCG-da loo yaqaan ee dawada TB-da in loo adeegsado cudurkan COVID-19 oo Mareykanka farabaan ku hayo kaasoo maalinta ka dambeysa uu sare u sii kacayo dhimashada halkaasi taas oo ay jaamacaddu tiri dawadan waan u adeegsan karnaa inaanu cudurkan aanu uga dhigno dawo maadaama aanu dawadan oo ah dawo 100 sano ka hor uu adduunku helay iyagoo yiri waa ay shabahdaa qaabka COVID-19 kan uu qofka u asiibayo oo ah xagga samabada marka loo eego waa macquul bay dhaheen inay tahay qaab nooc min TB ah waxaan kula daawadayaal haynaa gobol ku yaala dalka Canada ayaa waxaa ka dhacday toogasho uu nin ku toogtay 17 qof kaasoo ilaa haddeer aan la garanay sababta keentay kadibna markii isaga iyo boolisku ay dhaxmartay rasaasiin halkaasi isaga uu ku dhintay dhacdadan ayaa waxa ay ahayd mid aan inta badan lagu aqoon gudaha dalka Canada ayaa waxa ay ku abuurtay dadka cabsi fara badan taasoo ilaa haddeer aan boolisku soo saarin sababta rasmiga ah ee ka dambeysay dadka ninkaas u laayay waxaanu kaloo idiin haynaa iyada oo dhammaan dunida ay ku jirto bando ayaa wadamo badan oo uu ka mid yahay Jarmalka waxaa dadku ay sameynayaan isu soo baxyo ay kaga cabanayaan in laga qaado bandowga ay dowladdu ku soo rogtay iyagoo ka cabanaya inaanay awoodi karin in ay ku sii jiraan intaa in ka badan iyagoo dadkani ka cabanaya dhaqaale xumo ay soo wajahday dhammaan bulshooyinka kala duwan ee dunida ku nool waxa ay ka muujiyeen gadood arrintan uu cudurkan ku hayo dunida oo ah in dawada kaliya ee laga hortagi karaa ay tahay in dadka guryaha ay joogaan oo aanay ka soo bixin ayaa wadamo badan oo Yurub iyo Mareykan ka mid yihiin dalal fara badan oo kale ay dadku dibadbaxyo aad u xooggan sameynayaan halkan aad u jeedaan waa magaalada Paris oo ay isugu hor yimaadeen dad
aad u careysan oo banaanbaxayaala iyo booliska dadka kala ceyriya iyadoo loo adeegsanayay sunta dadka ilmansiisa iyo waxyaabaha rashka ah ee loo yaqaano qaabka protectiga ee boolisku kaga hortagaan dadka marka ay sameeyaan banaanbaxyaha aadka u xoogan sidan oo kale ah. daawadayaal waa Boolimoog channel oo aad uga barateen inuu idiin soo gudbiyo dhacdooyinka dunida ugu xiisaha badan iyo wararka ugu waaweyn oo markaa taagan. waxaanu idiin leenahay tan iyo kulanti dambe. wassalaamu calaykum. ismaqal dambe oo xiiso leh baanu idiin rajaynaynaa.